mudane ra'iisul wasaare waxaa farxad noo ah maanta inaanu kugu soo dhaweyno xafladan xilwareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqaday sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo sida xasuusataan haddaan soo koobo ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta sareynta sharciga iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka xoojinta nidaamka federaalka ah iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma arrimaha amniga wax badan baa ka hirgalay kana qabsoomay madaxweynuhu markii uu muddo kooban joogay xilka hayay waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen in uu muddo deganaa xafiis ay u ahayd xarun ay u ahayd waxa uu eegay sida ay u dhisan yihiin ciidankeena maamulkooda qaabka hagidooda waxa uu muuqatay in laga maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado qof kasta fayl yeesho qof kasta raadraac yeesho qof kasta meel loo maray yeesho xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay arintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyay waxaanu xukuumadda faray in la diiwaan geliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raadraac sugan leh tababarkoodii oo la teeyay qaybihii kala duwanaa ay lahaayeen oo aad loo xoojiyay karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabanay iyadoo laga turjumayo siyaasadii hagidii madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka oo xasuusataan markii la doortay madaxweynahaba in magaalada Gaalkacyo oo aan anigu nabadeynteeda ka shaqeyn jiray 2016 ay horseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan dib u heshiisiinta ka hana qaatay gobolka Mudug Shabeellada Hoose iyo Galguduud iyo meelo kale oo dalka ka mid ah iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta hage inoo ah dib u eegista dastuurka oo dhameystiran dhinacyadeedii xagga farsamada guud ahaan cutubiyadii ay ka koobnayd oo shaqo weyn oo iyadana la qabtay ah maamulada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna ka wada qayb qaateen dhameystirkiisuna wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda iyo hay'adaha dastuurka u xil saaran ee labada ahba ay u taalo inay meel mariyaan dib u habeynta dhaqaalaha wax badan baad ka warqabtaan oo guddida dhaqaaluhu horseed u ahayd wax badan oo shalay ugu dambeysay intii xukuumadda xilgaarsiintu IMF iyo World Bank deyn cafiska mashruuca aynu kala shaqeynaynay sida uu hore ugu maray dakhligu u kordhay miisaaniyadii 2017 iyo maanta 2020 faraqa weyn ee u dhaxeeya ka warqabtaan oo ogtihiin waxaanu dhaxalnay 25 wasaaradood 26 wasaaradood xukuumaddu ka mid tahay 25 ka mid ah dakhli ururin jiray dhowr iyo 10 shirkadoodna magaca dowladda federaalka Soomaaliya ayay ku ururin jireen dakhliga oo u ekeyd in nidaamka dakhliga ama cashuuruhu ay qayb ahaan barafitaasi yihiin shaqo weyn baa laga qabtay maanta waxa ay wasaaradda maaliyaddu hormuud u tahay nidaam midaysan oo dakhli ururin ah iyo serviceka ama adeegyada la qabto oo meel ku ururay garsoorka iyo cadaaladda dib u habeyntiisa ayaa wax badan laga qabtay golaha adeega garsoorka oo meel maray golaha shacabkana hor yaal jaranjarooyinka u harayna inay marta ay tahay iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyaduna ka mid ah halbeegyada dowladnimada muhiimka u ah mudane ra'iisul wasaare aragtida madaxweynuhu waxay ahayd dalkan in siyaasad iyo sharci lagu kala hago intii xukuumaddani shirtay 760 sharci iyo heshiis oo caalami ah ayaa maray 23 ka mid ah way dhaqan galeen oo madaxweynuhu uu saxeexay marka waxay tusaysaa in sharciga iyo nidaamku halbeeg iyo hage u yihiin dalkan waxa aynu ku shaqeynayno Soomaali ku wada joogi karto kuna mid ahaan kartaa ay tahay sharci iyo nidaam iskaashi caalamiga ah ayaa qayb kale weyn ah
madaxweynuhu hormuud ka ahaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika oo ay macnaheedu tahay isdhexgalka ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika degta Soomaalida geesku qoomiyad ahaan waa ummadda ugu ballaaran juqraafiga ay degan tahay ummadda geeska Afrika oo dhan taas waxa hormuud ahaa madaxweynaheena waana hirgashay isdhexgal dhaqaale iyo isu socod maanta inuu ka hana qaado geeska Afrika qof kasto Soomaaliyeed meel kasto uu joogabana waxay u tahay faa'iido weyn doorashooyinka ayaa ugu dambeeyay baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ansixiyeen sharcigii doorashooyinka ha yeeshee si dalka la isugu hayo oo la isugu jiido waxa hadda aynu haynaa heshiiska siyaasadeed ay madaxweynaha iyo madaxda dawlad goboleedyadu kala saxeexdeen oo hirgeliyeen golaha shacabkuna uu shalay ansixiyay labada aqal ee baarlamaanku aan iraahdo afwan ay hirgeliyeen shalayto oo ay meel mariyeen waxaan ugu hambaliyeynayaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed go'aanka taariikhiga ah ee shalayto ay noo meel mariyeen waayo doorashadu waxa ay kaabtaan nabadda in nabad iyo cod lagu kala baxo halkii qori iyo khilaaf iyo dagaal iyo rabshado ay iman lahayd marka almiidaan waasic waxaynu sameyn doonaa oo hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu sharcigaas haddaynu ku xisaabtanno heshiiska waxay inoo furayaa fursadna inoo siinaya in miidaan ballaaran oo lagu tartami karo aynu helno ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya